السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن wanaagsan daawadayaal ilaantiinba meelbaad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Xamse oo si dadban ugu jawaabay madaxweynaha Puntland xilli maamulkaasi Puntland uu ku dhawaaqay inuu yahay dawlad markaasi ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale waxaa ka soo baxay kulankii madaxweyne Xasan Sheekh iyo senator Fartaag ku yeesheen Villa Soomaaliya xilli go'aan adag markaasi laga soo saari doono xaaladda gobolka Gado Somaliland oo markaasi gacmo shisheeye ku eedeysay arinta magaalada Laascaanood wararka dibadda waxaa kamid ah weerar dad lagu dhaawacay oo ka dhacay dalka Faransiiska aan ku bilaabay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa si dadban waxa uu ugu jawaabay go'aankii ka soo yeeray dowlad goboleedka Puntland ee ahaa inay u dhaqmi karaan sida dowlad madax bannaan oo kale iyaga oo markaasi ka qaba tuhunno dowladda dhexe Ra'iisul Wasaaraha oo hadal ka jeediyay kulan uu la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa sheegay in sanadkan ay xukuumadda Soomaaliya qorsheynayso inay ku dhaqaaqdo tallaabooyin dhowr ah oo markaasi la rajeynayo inay qabsoomaan sanadkan sida dhamaystirka dastuurka iyo in dalka oo dhan laga saaro al-shabaab waxa uu sidoo kale Ra'iisul Wasaaruhu si gaar ah uga hadlay dhamaystirka dastuurka qabyo qoraalka ay u yaala dalka oo uu sheegay inay jiraan qolo markaasi markasta ka qaylisa dhamaystirka iyo sidoo kale in sadbursi gaar ah ay doonayaan taasi oo si gaar ah markaasi loogu fasirtay inuu si toos ah uga jawaabayay go'aankii ka soo yeeray Puntland marka dhanka Puntland wali markaasi wax hadal ah oo ku saabsan jawaabta Ra'iisul Wasaaruhu ka bixiyay go'aankii Puntland wali kama soo bixin balse siyaasiyiinta qaar ee markaasi falanqeeya arrimaha dastuurka iyo sidoo kale go'aanka dowlad goboleedka Puntland ee ku dhawaaqday ayaa waxaa markaasi la sheegayaa in arintu ay tahay mid markaasi la soo jawaabayo iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya xilli uu garsoorka shir markaasi loogu qabtay Muqdisho ee ku saabsanaa garsoorka uu ka hadlay uu ku sheegay in markaasi dalka oo dhan laga xukumo magaalada Muqdisho gaar ahaan Villa Soomaaliya waxa uu sheegay kan jooga markaasi sida uu hadalkiisa u dhigay badda casila iyo badmadow laga xukumo Villa Soomaaliya isagana uu madaxweyne u yahay ayna san jirin madaxweyne kale oo markaasi amar taagleen kara ama ereyada ama markaasi sameyn kara xadgudub karana sida uu markaasi sheegay arrimaha dastuurka arinta ayay dadka falanqeeya siyaasadda ay markaasi ku sheegeen in Puntland si dadban markaasi ugu jawaabeen madaxda ugu sareysa dalka ugu sareeyo Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda iyo Xamse Cabdi Barre Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dhanka kale waxaa magaalada Muqdisho kulan gaar ah ku yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare iyadoo uu qadka telefoonka uga qayb galay gudoomiyaha gobolka Gado Axmed Boole Garaad wasiir ku-xigeenkii hore arrimaha gudaha Jubbaland Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen kulanka ayaa wararka aan helnay waxa ay sheegayaan in looga hadlay arrimaha gobolka Gado iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay mas'uuliyiinta in loo baahan yahay maamulka Jubbaland oo midaysan oo Kismaayo kaliya aan ku ekeen ana markaasi ay sheegeen in ay markaasi rajeynayaan oo ay ugu baaqayaan madaxda ugu sareeyo Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland in markaasi isku soo dhawaansho la muujiyo isagoo Fartaagna uu kala hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda in markaasi gobolka Gado lagu abaaro wada hadal siyaasad iyo sidoo kale isku tashi wanaagsan dhanka kale musharaxa madaxweynaha xisbiga wadaniga Somaliland oo ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ku eedeeyay gacmo shisheeye oo hurinaya colaadda gobolka Sool musharaxa oo la hadlay warbaahinta waxa uu ugu baaqay inay faraha kala baxaan isagoo sidoo kale ugu baaqay in guddi loo saaro arinta si markaasi xal looga gaaro maadaama dhibaatada ugu daran ay soo gaarayso dadka shacabka sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in maamulka gobolka Sool iyo shacabka ku nool ay markaasi yihiin
dad markaasi ayidsan xukuumadda Somaliland siduu hadalka u dhigay musharax madaxweyne xisbiga wadani iyo markaasi isagu si gaar ah uga hadlay xaaladda gobolkaasi. ugu dambeyntii ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dhaawacay weerar markaasi toorey loo adeegsaday oo markaasi ahaa mid si urakaca markaa uu nin u sameeyay oo ogtii hore ee saakay ka dhacay saldhigga treenada laga raaco ee The Gare du Nord Station oo ku yaala bartamaha caasimadda dalka Faransiiska ee Paris. qoraal wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Greg Darmani soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in eedeymahaasi weerarka geystay ama eedeysanahaasi weerarka geystay ay booliiska si degdeg ah u dileen. wasiirka waxa uu ku bogaadiyay saraakiisha booliiska sida geesinimada leh ee ay markaasi uga falceliyeen falkaasi. sida laga soo xigtay telefishinka PFTV 6 qof ayuu dhaawac fudud markaasi soo gaaray oo ka soo gaaray weerarkaasi kuwaasi oo daryeel caafimaad loo fidiyay. faahfaahin dheeraad ah lagama bixin haybta iyo magaca ninka weerarka geystay oo la sheegay inuu luqadda Carabiga ku hadlayay. dhinaca kale sargaal u hadlay shirkadda treenada Faransiiska ayaa sheegay in weerarkaasi horjeeday jahwareer ama u horseeday iraada jahwareer ku yimid jadwalkii shaqo ee treenada ee markaasi halkaasi laga raacay. waa tahay daawadayaal wararkii ugu dambeeyay waa naga intaan ku kulmayno waxaan warkaysiga nabadgelyo.